ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa u hoggaamsamay amar ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo lagu sheegay inay kaamirada qarsoon ee CCTV ka fujiyaan goobaha ganacsiga. Al-Shabaab ayaa ganacsatada u sheegay in kaamirada CCTV ay ku jeedo wadooyinka caasimadda siiba wadada muhiimka ah ee halbowlaha u ah Muqdisho ee Maka al-Mukarrama oo inta badan qaraxyadu ka dhacaan ay gabi ahaanba ka fujiyaan kaamirooyinka qarsoon ee CCTV. Ganacsatadan ayaa loo ogolaaday kaliya in gudaha xarumahooda ganacsiga ay ku dhajistaan kaamirada si ay uga ogaadaan ama ugala socdaan tuugada waxboobta, balse kaamirada aysan ku soo jeedin wadooyinka. Baaritaan oo arrintan ku sameeyay telefishinka caalamiga Universal TV ayaa xaqiijisay in xarumaha bangiyada, hoteelada, carwooyinka iyo sidoo kale ganacsiyada waaweyn ay wada aqbaleen amarkii kooxda Al-Shabaab. Sababta Al-Shabaab ay amarkan u soo saartay ayaa lagu micneeyay inay kaga hortagayso in kaamirooyinka CCTV ee ku dhagan xarumaha ganacsiga siiba kuwa ku jeeda wadooyinka ay duubeen muuqaallo marka dib loo daawaday sahlay in la daba galo gawaarida ku qaraxday wadooyinkaas kadibna lagu soo qabtay dadkii ka dambeeyay qaarkood oo maxkamadaha dalka la soo taagay. Tallaabadan ayaa kooxda Al-Shabaab u sahlaysa inay weeraro cusub ka fuliyaan magaalada iyaga oo aan cabsi ka qabin dabagal lagu sameynayo. Waxaana la sheegay in hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya inaysan weli la imaanin kaamirooyin u gaar ah oo ay ku ogaadaan arrimaha amniga iyo sidoo kale qaraxyada gudaha dalka ka dhaca.